xafladan lagu xusayay sanad guuradii 55aad ee ka soo wareegatay 1 Luulyo 1960kii markii xurnimada ay qaateen gobolada koonfurta Soomaaliya iyo isku darkii waqooyi iyo koonfur ayaa habeenkii xalayta lagu qabtay madaxtooyada magaalada Garowe. xafladda waxaa ka qayb galay madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali ku-xigeenkiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada dawladda xildhibaanada baarlamaanka saraakiisha ciidamada cuqaal waxgarad siyaasiyiin iyo dadweyne ka kala yimid gobolada Puntland si ay magaalada Garowe kaga qayb galaan xuska munaasabadda 1 Luulyo. xafladda xuska 1 Luulyo ee madaxtooyada Garowe lagu qabtay waxaa inteeda badan xooga lagu saaray arrimaha federaalka dalka Soomaaliya iyo shirka ka soconaya magaalada Cadaado kaasi oo la doonayo in maamul loogu dhiso gobolada dhexe ee dalka. xubnaha ka hadlay munaasabadan waxay si midaysan ay u sheegeen in Puntland aysan raali ka ahayn in faragelin lagu sameeyo dhismaha iyo jiritaanka Puntland. madaxda dawladda federaalka dalka iyo xubnaha ku shirsan Cadaado waxay xubnaha Puntland ay ugu baaqeen in ay faraha kala baxaan arrimaha sheegashada deegaanada maamulka Puntland uu ka taliyo. madaxweyne Cabdulle Maxamed Cali ayaa ka sokow hambaliyada xuska 1 Luulyo kadib ka hadlay arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo bariyahan laga sugayay. waxaana madaxweynaha uu sheegay inuu aad kaga xun yahay in wanaagii ay Puntland ka shaqaysay xumaan lagu bedelay. Puntland waa hooyadii iyo aabihii federaalka Soomaaliya. saas daraaddeed cidna ka aqbali mayso in wanaagii ay ka shaqaynayso muddada dheer in xubaan loogu bedelo cidna ka qaadan mayso. shirka Cadaado ka socda uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal ah loogu dhiso ee waa shirqool xamar laga soo maleegay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabada oo jira. marka shirka Cadaado mas'uuliyad darradiisa waxaa dusha u ridan doona dawladda federaalka ayaa u ridan doonta. ayada ayaa wadda wasiiradeedii baa jooga rasuulayaasheedii baa yimid madaxweynayaasheedii baa yimid marka way caddahay marka cidda qaadaysa mas'uuliyaddeeda iyo wixii meesha ka soo baxa. madaxweynaha uu hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in haddii maamulka gobolada dhexe xuduudiisa laga dhigo gobolka Nugaal ay xuduudda Puntland noqonayso sida uu madaxweynaha hadalka u dhigay deegaanada Godinlabe iyo Guriceel. waad maqlayseen oo waxa ka soo yeeraysay bariyahan dambe waxay lahaayeen xuduudayadu waa Nugaal. waa og yihiin inaysan xuduudooda aysan noqon karin Nugaal. waxa hubaana in markuu runta ay tagto xuduuddu Nugaal noqon mayso. xuduuddu waxay noqonaysaa Godinlabe iyo Guriceel. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa fariin u diray madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isagoo sheegay in dawladda dhexe ay ka waantowdo faragelinta lagu hayo qayb ka mid ah maamulada dhisan ee dalka ka jira. waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka haddii ay ka waantoobi weydo dhagarta iyo shidada ay Soomaaliya kula dhex jirto oo maalin walba gobol nabad ah ay dib la doonayso in Puntland dastuurkeedu qodobkeeda afraad uu u ogol yahay inay masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashato. inkastoo madaxda Puntland iyo xubnaha kale ee ka qayb galay xafladan ay ka midaysnaayeen arrimaha shirka Cadaado iyo nidaamka federaalka dalka Soomaaliya haddana munaasabadda 1 Luulyo ee lagu qabtay madaxtooyada magaalada Garowe waxay ka sinneed xafladda loogu dabaaldegay maalintaasi oo qayb ka mid ah gobolada dalka lagu qabtay. madaxda Puntland ayaa markii ay saacadu soo gaadhay 12kii saqda dhexe geeska Afrikada bari waxay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta dawladda iyadoo la suray calanka jamhuuriyadda dalka si uu hawada sare uga dulbabado.